asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. daawadayaal meel weliba aada joogtaan kusoo dhawaada wararka naga soo gaaray waddanka Ethiopia. qodobada aynu wararka kusoo qaadani doono waxaa ka mid ah xaaladihii u dambeeyay guud ahaan dagaaladii ka dhacay 24 saacadoodkii lasoo dhaafay waddanka Ethiopia. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa weli waxa uu ku maqan yahay dhankaas iyo furimaha hore ee dagaalka kadib markii uu dib ugu laabtay. sidoo kale waxaynu eegi doonaa jabhadda Fana ee u dagaalamta waddanka Ethiopia oo iyaduna dagaalo culus ku qaaday sheegtayna in ay guulo waaweyn ka soo hiyeen kooxaha TPLF. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu halkan ku faahfaahin doonaa. saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka oo subscribe noo saar, like noo saar, asxaabtaadana la sii wadaag. waa tahay saaxiibayaal mar kale soo dhawaada. haddii aynu ku bilowno dhankaas iyo guud ahaan dagaaladii ka dhacay waddanka Ethiopia iyo xaaladihii u dambeeyay, waxaa la soo sheegay in dagaalo xooggan ee dhankaas iyo deegaanka Canfartu ay ka dhaceen gaar ahaan gobolka Wollo. waxaa la soo sheegayaa in kooxaha TPLF ay bilaabeen dagaalo aad u xooggan, sidoo kalena waxaa la sheegayaa in weeraro xooggan ay kusoo qaadeen kooxahani ay dhankaas iyo dhifaysadii ay ku lahaayeen ciidamada militariga ee Ethiopia. TPLF ayaa u muuqata mid inta badan haatanba weeraro waaweyn kusoo qaadaysa ciidamada militariga ee Ethiopia, sidoo kalena deegaano hor lehna rabta in ay kala wareegto kooxahan ee ciidamada militariga Ethiopia. waxaana la soo sheegayaa in halkaasi dagaaladii ka dhacay ama 24 saacadoodkii u dambeeyay dagaalo xooggan ay ku dhaxmareen kooxahan TPLF iyo sidoo kale ciidamada militariga ee Ethiopia. TPLF waxaana la soconay in ay dib u soo laba kaclaysay kadib markii ay la wareegeen magaalooyinka ay horey isaga huleeleen. waxa ayna kooxahan TPLF dib ugu soo laabteen qabsashada magaalooyinka Lalibela iyo sidoo kale Gaashana iyo nawaaxigeeda iyo deegaano aad u tiro badan oo ay horey u sheegeen in ay gabi ahaanba dib ula wareegeen. waxaynu ogeen in isbuucyadii u dambeeyay ee lasoo dhaafay in ay TPLF ay gabi ahaanba dib isaga gurinaysay goobihii ay ku jirtay, sidoo kalena magaalooyinkan ay haatanba dib u qabsatay ay horey uga baxday. haatanna magaalooyinka ay qabsadeen ayaa waxa ay ku qabsadeen dagaalo ay ku qaadeen ciidamada militariga ee Ethiopia. horey afhayeenka TPLF mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay dib u gurashada ama deegaanada iyo sidoo kale magaalooyinka ay ka baxayeen in ay ahayd xeelad khibradeysan. dabcan TPLF ayaa soo rogaal celin xoogan sameysay kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu dib ugu laabtay xafiiskiisii. ayaa maalinimo ama 2 maalin kadib waxa ay durbaba weeraro xoogan kusoo qaadeen ciidamadii ku sugnaa magaalooyinka iyo sidoo kale deegaanadii ay horey u qabsadeen oogana baxeen iyaguna. balse haatanba waxaa la soo sheegay in TPLF ay waji afraad oo ay horey u dejiyeen in ay haatanba ay kula dhaqmayaan ama xeelada dagaal ay dib u soo celinta in ay iyagu bilaabeen. saraakiisha ugu sarreysa TPLF ayna ugu horeeyaan Getachew Reda iyo sidoo kale saraakiisha kale ee ku sugan dhankaas iyo magaalada Maqale ayaa waxa ay xeeladani ku tilmaameen mid ay iyagu horey u dejiyeen, sidoo kalena ka bixitaankii hore ee magaalooyinka ugu baxayeen ay ahayd mid xeelad dagaal. haatanba hogaamiyaha Tigray ayaa maanta waxa uu la hadlayay warbaahinta afka Tigray ku hadasho, isagoo sheegay TPLF in ay haatanba ay doonayso in ciidamo hor lah ay tababarto, sidoo kalena shacabka Tigray ayuu ugu baaqay dhalinyaradooda in ay iska soo xaadiriyaan goobaha tababaradu ay ka socdaan. waxa uuna sheegay sidoo kale in ay u baahan yihiin ciidamo hor leh ay tababaraan oo ay geeyaan dhankaas iyo furimaha hore ee dagaaladu ay ka socdaan. Debretsion Gebremichael hogaamiyaha Tigray ayaa waxa uu bogaadin xoogan u diray dhankaas iyo dagaaladii ay guulaha ka gaareen kooxaha TPLF, sidoo kalena waxa uu ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan dagaaladana ay sii xoojiyaan. waa isagoo oo dhiirigelin u diraya dhankaas iyo dagaaladii u dambeeyay ay Tigray ku qabsadeen deegaanada iyo sidoo kale magaalooyinka dhankaas iyo gobolka Wollo ee deegaanka Canfartu. waxaana la soo sheegayaa Debretsion Gebremichael inuu ku tilmaamay in ay Tigray ay ku jiraan ciidamadooda difaacida dalkooda iyo sidoo kalena xoreynta ama ka saarida kalitalinsnimada ee haatanba uu ku tilmaamay in Abiy Ahmed uu yahay. dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa iyaguna dhankeeda waxa ay sheegatay in ay guulo waaweyn ay ka gaareen. waxayna sheegeen in 400
oo kilomitir ay dib ay u celis ay ku sameeyeen kooxaha TPLF oo horey la sheegayay in 130 kilomitir ay u jireen dhankaas iyo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. waxaana la soo sheegayaa dagaaladii u dambeeyay ciidamada militariga Ethiopia sheegteen in ay deegaano hor leh ay TPLF kala wareegeen. sidoo kalena Abiy Ahmed waxa uu intaasi sii raaciyay in deegaanadu haatanba uu ku sugan yahay in ay dagaaladii ugu xooganaa ay ku dhaxmaray iyaga iyo kooxaha TPLF ay kaga qabsadeen hoob aad u tirman. sidoo kalena ay ka saareen deegaano hor leh. dhanka kale haddii aynu eegno saaxiibayaal, jabhadda Fana ay u dagaalanta la jirta dowladda dhexe ee Ethiopia ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in hoob aad u tiro badan ay ka dhaceen kooxaha TPLF. sidoo kalena ay jab weyn u gaarsiiyeen deegaanada ayna kula dagaalamayeen oo ah wadooyinka waaweyn ee soo gala dhankaasi Dhisay iyo Kombolja. ayaa waxa ay sheegteen in ay dagaaladii u dambeeyay jabhadaasi iyo sidoo kalena kooxaha TPLF ee dhaxmaray in ay hoob aad u tiro badan ay dabcan ka qaateen. sidoo kale jabhadda Fana ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada militariga Ethiopia oo garab siinaya in ay hoob aad u tiro badan ka heleen. waxaynu ogeyn in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu haatanba jabhadooyinka axmaaradu iyo sidoo kale canfartu uu hubeynayo. horey markuu ra'iisul wasaaraha uga soo laabanayay dhankaas iyo furimaha hore ee dagaalka uu kaga sugnaayay deegaanka canfarta ayaa waxa uu hoob aad u tiro badan ku wareejiyay jabhadda halkaasi ka dagaalamaysa oo haatanba dabcan iyaguna la sheegayay in jabhadooyinkaasi hoobka aadka u tiro badan ay ka helayaan dhankaas iyo dawladdu. dabcan guud ahaan wadanka Ethiopia dagaalo qarar ayaa ka taagan walow la soo sheegay in TPLF ay laba kacleynayso oo ina u soo jeedo dhankaas iyo magaalada Addis Ababa. dhanka kale iyaguna jabhadda xoreynta Oromia ayaa waxa la sheegay in ay qabsadeen deegaano waaweyn. sidoo kalena maanta waxa ay la wareegeen magaalo weyn oo istiraatiiji ah oo ku taalo dhankaas iyo gobolka Waliga oo ah magaalo aad u istiraatiiji ah. waxaana la arkayay ciidamada jabhadda xoreynta Oromia oo gedi ahaanba magaaladaasi la wareegay. muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa la arkayay iyagoo ku dhex sugan magaaladaasi lana wareegay guud ahaan maamulka magaaladaasi. dabcan jabhadaasi ayaa iyaduna dhankeeda waxa ay kala dagaalamaysaa dowladda dhexe ee Ethiopia. waxaana la arkayaa in reer galbeedku ama wariyaasha reer galbeedku ay haatanba ay ku sugan yihiin goobaha ay ka dagaalamayaan jabhadda xoreynta Oromia. waxaana la soo sheegayaa in dagaaladan guud ahaan Ethiopia ka tagan inay qayb ka yihiin dalalka reer galbeedka. sidoo kalena TPLF ay horey hoob u heli jirtay dhankaas iyo dalalka reer galbeedka, balse haatanba waxaa la arkayaa in kooxaha jabhadda xoreynta Oromia in reer galbeedku ay xiriir hoosaad ah ay isla sameeyeen. sidoo kalena ay hoob aad u tiro badan ama support aan ilaahdee taageero ay ka helayaan dhankaas iyo dalalka reer galbeedka, maadaama ay reer galbeedku qaar ka mid ah wariyaashooda ay kasoo dhex muuqeen jabhadda goobaha ay ka dagaalamayaan. waa tahay saaxiibayaal, intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna war waxaynu idinkaga haynay guud ahaan wadanka Ethiopia. intaan warkan war lamid ah ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.